ciidamada booliiska ismaamulka Mombasa ayaa maxkamadda weydiistay in ay u ogolaato in eedeysane lagu magacaabo Fayza Cabdullaahi Xasan ay muddo 14 cisho ah xabsiga ku hayaan si ay u soo gabagabeeyaan baaritaanada. Fayza ayaa ahayd qofkii ugu dambeeyay ee la arkay iyada oo la socoto Najma Cabdullaahi Macallin oo ah gabadh Soomaaliyeed taasi oo maalmo ka hor meydkeeda laga helay Mombasa. Qareenka matalaya waaxda dacwad soo oogida Bosibori Ogega ayaa maxkamadda u sheegay in haddii fursad dheeraad ah la siiyo ay xaqiijin doonaan in Fayza ay ku lug lahayd dilka Najmo iyo in kale. Ogega ayaa garsoore Vincent Adet ku wargeliyay in eedeysanaha ay baxsad ahayd tan iyo markii ay ogaatay in ciidamada booliiska ay raadinayaan. Mr. Ogega ayaa ku doodaya in tuhumanaha ay ka safartay Mombasa iyadoo aaday magaalada Eldoret ee ismaamulka Uasin Gishu. Waxa uu intaa ku daray in ay isku dayday inay magaalada Nairobi qaab dhuumaleysi ay ku soo gasho balse ay saraakiisha ammaanka ku qabteen aaga Kangundo. Najmo Cabdullaahi oo 19 sano jir ahayd ayaa iyada oo meer daboolsan lagu arkay goobta loo yaqaano Dongo Kundu waxaana la geeyay cisbitaalka Port Reitz halkaasi oo ay ku dhimatay. Baaritaan lagu sameeyay meydka Najmo maalinkii Sabtida ayaa lagu ogaaday inay u dhimatay dhaawac culus oo loo geystay. Natiijada baaritaanka ayaa muujisay in laga dhaawacay dhinaca midig ee madaxa. Qareenka u doodaya qoyska gabadha la dilay Derrick Odhiambo ayaa maxkamadda u sheegay inay cadaalad dalbanayaan oo ay doorbidayaan in Fayza xabsiga lagu sii hayo inta laga dhameystirayo baaritaanada. Garsoore Vincent Adet ayaa lagu wadaa inuu maanta go'aan ka soo saaro in eedeysanaha xabsiga lagu sii haynaya iyo in kale.